suban kugu salanesa makuwa Ambale suban kugu salanesa makuwa Kesiyashi naftoda usafri Qarani mada Somaliland Kesiyashi naftoda usafri Qarani mada Somaliland Ruska dawsan kugu salanesa makuwa Ruska dawsan kugu salanesa makuwa Kuside hambarsan Sono qoshadisa Personido mutastaye dasturka Dasturka kusalan kugu salane Minimo walalnimo gobanimo Minimo walalnimo gobanimo Islamnimo kugu salane Sabo usaniyo Islamnimo kugu salane Sabo usaniyo Samakuwa, samakuwa, samakuwa Samakuwa, samakuwa, samakuwa kooxda halkar ee heesta calanka halkan inooga qaaday aad bay u mahadsan yihiin intaa kadib waxa aynu ku soo dhaweyn doonaa stageka kooxda Inspire Group ee lahaa fikradda iyo hal abuurka barnaamijkan Inspire Group waa niman dhalinyaro ah oo ku dadaalay inay hal abuur cusub ku soo kordhiyaan Somaliland waa kooxdii ugu horeysay ee suuro geliyay barnaamijkii berigii dhaweyd doorashadii madaxtooyada Jamhuuriyadda Somaliland doodii murashaxiintii madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen ee Somaliland marka waxaan halkan stageka ku soo dhaweynayaa Inspire Group saddex xubnood oo kamid ah waa Jaamac Nuur Samiir Ducaale iyo Hibaaq Cabdilaahi Laari waa mahadsantihiin. We would like to invite on the stage the people that are behind this big event tonight, same people that organized the presidential debate last year in 2017. 3 people, where are they? Samir Duale, Jama' Noor, Yehibaq. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدحونا كحيانك جمهورية الصوماليلاند وسير هذا شرفت له مرتي شرفته مروين يو مدنيال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا البدن رنتي ما نسوي استاجين Inspire Group وضع كرنا إنسان نوحى إنه كل عن كنا هاي إنه نفكر ده عرناه bulshada la wadaagno wax cusub intii karanka yaga aad baan ugu mahadnaqaynaa intii naga caawisay hawshan laakiin fikraddan Somaliland Awards waxay ku timi inaanu bulshadeenu is aqoonsato qofkii u qalma in recognition la siiyo dabaqadaha kala duwan ee nolosha haday tahay ganacsiga haday tahay arrimaha bulshada haday tahay ururada haday tahay hay'adaha aan dawliga ahayn inaynu aqoonsano oo aynu ku ixtiraamno taas baan fikradda ku keenay awaadisku way hawlo bateen marka waxaanu ka fikirnay sidii aan wax uga bedeli lahayn processka iyo sidaan ku nimi iyo sida gudida madaxa bannaan ee xaggan fadhida ay ku timi dib baanu ka sheegi doonaa laakiin se waxaanu idin soo bandhigaynaa xafladan waxaanu ku faraxsanahay inaad nagala soo qayb gashaan
Somaliland Awards hiigsiga iyagu waxa weeye inaanu gaadhsiino meel dheer oo dalka iyo dadka iyo jiilasha dambe ay u aayaan ayna noqoto taariikh aan wada samayno waanu ku faraxsanahay inaad ka mid noqotaan ومحسن جامع haddaan in yaroo idin guud maro sidaan barnaamijka ku bilownay iyo processku maray in yaroo background information haddaan idinka siiyo 6 gobol ee jamhuuriyadda Somaliland ayaanu ka samaynay survey ka samaynay waxaa noo soo baxay 214 shirkadood qof iyo maxay ahayd ganacsato isugu jirta ka bacdi waanu kala xulay anoo criteria aad ka akhriyi kartaan somalilandawards.com ku kala saarayna ayaa waxa criteria buuxiyay 22 ka mid ah marka halka xaalku marayo ayaa 22kii maxay ahayd iyagu criteria buuxiyay aanu xulay juuriga ama garsoorayaasha halka fadhiya say u eegaan garsoorayaasha oo iyagu qaar ganacsato yihiin qaar kale qoraay yihiin qaar intellectual yihiin qaar lawyer yihiin say iyagu kala xulaan sidoo kale garsoorayaashu waxay awoodayeen inay cidii ay iyagu gartaan ay ku soo dari karaan ama cidii ay aan criteria-hooda buuxin ay ka saari karaan hawshu markay saa u dhacday waxaan caawa la bixin doonaa waa 9 category 9 category ee la bixin doono 7 waxay la xidhiidhaa 5 waxay la xidhiidhaa xagga ganacsiga 2 waxay la xidhiidhaa xagga arrimaha bulshada 2 kalena waxay la xidhiidhaa iyaguna ashkhaas iyo qof maalin horeba saasay ahayd waxaanu rabnaa inaanu mahadnaq u jeedino shacabweynaha jamhuuriyadda reer Somaliland xukuumadda dhalinyarada ururada bulshada dhammaan inaanu mahadnaq u jeedino inay caawa ka naga soo gasheen waxaanu kale u mahadnaqaynaa dadkii iyaguna nagala shaqeeyay ee taageeray barnaamijkan mahadsan Samiir waxaanu mahadnaqanaa dhammaan horta bulshada reer Somaliland xagan ka soo qayb gashay mahadnaq gaar waxaanu leenahay Last Group Dahabshiil Group DNA Marketing Hargeysa Beats Fly Dubai Sahal Tech iyo Smart Jobs waxa kale oo mahadnaqaynaa juurida waqtiga badan gelisay minti fikradan aan wadno nagala shaqeysay maantana hirgelisay inaan barnaamijka isku nimaadno halkan u fadhino idinkuna mahadsantiin waxaan kale ku daraynaa barnaamijkan ciid maalgelisay ma jirto shacabweynaha jamhuuriyadda reer Somaliland ayaa maalgeliyay shirkadaha ay sheegtay iyo sidoo kale Sagal Jet oo iyaduna daabacaadaha iyo waxaas oo dhan ku deeqday waad mahadsantihiin waxaan u rajaynaynaa dhammaan tartamayaashii oo dhan guul baan u rajaynaynaa annagoo inspire ahaan maamulka isku dubaridka iyo baanu lahayn kala reebidda xulidda iyo guulaystayaashaba caawa juuriga ayaa intaa lahaa oo annagu waanu ka madax bannaanayn si aanay arrinku u noqon bias haddaan annagu qaban qaabinno annagu maxay ahayd xafladdii diyaarinno haddana dadkii awardska xulay qaadanaya annagu aanu soo xullo taasi wax micnaa samayn mayso markaa juuriga ka warrami doona processkii hawshaasi martay wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu وعليكم السلام محمد سمير دعالي جامع نور يهباق عبد الله انسباير جروب ادبو مهدسين سي كوبان بينوغو شرحين برنامج كينن قيمها لا يو ujeedada ay ka leeyihiin iyo halganka ay soo mareen iyo sida qaranka jamhuuriyadda Somaliland ay doonayaan inuu bedelo waa mahadsan yihiin Thank you very much, Samir, and the rest of Inspire Group, Jama and Hibak. The next person that we would like to invite on stage was the former Minister of Planning of the Republic of Somaliland. Furthermore, he was a former lead researcher of the Academy for Peace and Development in Somaliland. Dr. Fadal has been founding director of Social Research and Development Institute in Somaliland, also known as SORADI, and coordinator of the Independent Scholars Group from 2008 to 2012. Fadal served also as the secretary of the Foreign Affairs for the Wadani political group. Please. Mohammed,
waa mahadsan tahay intaa kadib waxaynu u yeedhaynaa erey kooban oo ku saabsan muhiimadda barnaamijyada noocan oo kale ah iyo inay dadku qaran ahaan ay isqiimeeyaan ku saabsan waxaan soo dhoweynayaa oon halkan uga yeedhi doonaa wasiirkii hore ee wasaaradda qorshaynta jamhuuriyadda somalilan doctor maxamed cismaan fadal sidoo kalena doctor fadal waxa uu ka mid ahaa hormuudka cilmi baarayaasha akademiyadda nabadda iyo horumarinta jamhuuriyadda doctor fadal waa aasaas maxadka diraasaadka ee soo markii ugu dambeysayna wuxuu ahaa xoghayaha arrimaha dibadda xisbiga waddani doctor maxamed cismaan fadal waa PhD holder halkan ereygiisaan kusoo dhaweynaya waa mahadsantiin بسم الله الرحمن الرحيم waxaa ii sharafa inaan caawa xafladda caynkan ah oo aan qiimaheeda somaliland ay u leedahay aan u haysto inay tahay mid aada uga sarreeya wax badan oo aynu soo aragnay korriinka somaliland bisaylka dhallinyaradeeda iyo dadka u soo baxayana ay muujinayso dadka la xusaya waa dadka runta ah ee nolosha dadka somaliland taabanaya waa ganacsigii iyo ciddii haddii bayd maayo waxtar ku kordhinaysa dadka reer somaliland waxaan anigu guud ahaan doonayaa inaan in yar maadaama ay dhaqaalo tahay oo u badan tahay oo hal abuurku nooc walba waa leeyahay laakiin qaybta aan sii xusaya ah qaybta ganacsatada iyo businesska iyo hormuudnimada waxaa dunida maanta marka ugu badan dunidan globalka dunidan global village-ka ah ee isu soo ururtay waxa ugu badan qaylo aynu maqalnaa dawladda iyo madaxweyneyaal isku haysta dhaqaale waxaasaanu kaa iibinay waxaad iga iibinaysaa iga badan waxaan doonayaa inay iibkaygu kaa bato anigu arrintaas oo kale somaliland oo doonaysa inay cid wax ka iibiso waxaad moodaa inaynu meel beri ku habsaannay meel la yidhaahdo adhi oo uu noqdo ahaan jiray adhigu waxa keliyaynu iibinno ilaa maantana waxaynu dibadda u dhoofinno oo macnale oo aynu sheeganno uu adhiga iyo geela xooladee xoolo nool xoolaha nool haddaba waxay la tahay mararka qaarkood ilaahay baa inagu soo anfaco muddo badan baynu ku soo caanamaallay mar bay dadku in yar baan doonaya markaa inaan dib ugu noqdo backgroundkaas iyo sida iibka iyo inaan anigoo oo ka duulaya waxa muhiima oo noloshu tahay oo siyaasadda iyo wax walba inay odeegaan tahay inaynu dhaqaalaha dhisno wax iibinno oo cid kale wax ka iibinno marka waxaynu dunida ka iibinaa xoolo aynu ka iibin jirnay waxa inoo raaca oo dakhli caalamiya ah waxa la yidhaahdo remittanceska ama wixii xawaaladii naga soo galeen dadku lacagta ay soo diraan markii aynu gobonnimada qaadannay dadkeenna inta badan reer miyi bay ahaan jirtay 80% xoolay ku noolaayeen magaalooyinkana waa yaryaraayeen laakiin 70-nadii bay furmeen xoolaha iibkooda oo carabta loo dhoofiyey 70-nadii bay magaalooyinkan aynu arkayna ilaa 80-nadii bay hargeysa iyo burco iyo berbera iyo haddii baydmaayo boorame iyo gaababa ay magaalooyin waaweyn noqdeen inta badanna waxay ka dhismeen lacagtaa xoolaha waxa soo raacay oo markaa bilaabmay dadkeennii u dhoofay carabta oo isaguna ku soo kordhiyey waxaan doonayaa halkaa uga soo bilaabayaa markii dagaalku kadib aynu ka soo noqonnay labadii un baynu haddana halkii ka bilownay labadii un baynu weli haynaa labadaas waxay inaga masruufaan wax 90% baynu soo dhoofsannaa waxa aynu cunno iyo waxaynu xidhanno iyo waxaynu kaxaysanno iyo waxaynu dhisanno iyo waxaynu guri dhigno iyo wax walba 90% dibadda ka keenaan kuwaasaanaynu ku iibsannaa waxaan doonayaa inaan xasuusiyo dhallinyarada halkan oo isweydiiyaan inay marka ay magaalada marayaan markay makhaayad fadhiistaan markay guri joogaanba anugu waxaan igu wareegsan tolo maxaan ka soo saaraa waxaan xidhanahay gaarigan wato guriga weelka tolo anigu maxaan ku leeyahay
haddii inanka kula mid yahay Ethiopia aad makhaayadiisa tagto marka tagtaan waxa laga yaabaa boqolkiiba 60 inuu isagu leeyahay waxa ay soo saaraan waxaan markaa halkaa uga soo durkayaa markii aynu imika waxa aynu ku nooleen waa gabaabsi xoolihii waa gabaabsi remittanskii dadkeenna dibadda tegey inoo soo diri jireenna waxay ku xidhan tahay carruurtoodu intay ka qaangaadhayaan iyaguna ay maaragtay howlgab ka noqonayaan labaduba waa gabaabsi labadaba talaynu markaa u baahan nahay maxaynu ku bedelaynaa maxaynu adduunka ka iibinaynaa adduunka waynaynu wax ka iibinaa waxaan markaa uga socdaa xoolaha waxaynu u baahan nahay dhaqan baynu ahayno ka maarmi maynee inaynu bedello sidii waxaynu sidaynu u dhaqi jirnay neefku wuxuu ka kooban yahay caano iyo cad iyo harag iyo lafo iyo haddii beedmaayo wax la mid ah kulligood marketable weeyaane in la jajabiyo gooni loo koriyo remittanskana waxaynu uga wareegaynaa lacag iska dareeraysaa iman maysee investment inaynu dadkeenna dalka jecele inaga jecel iyaga carruurtooduba inay investment dalka soo gashadaan aynu kaa uga wareegno siyaasadeennu noqoto inaynu ku soo dhiirigelinno inay maalgashi dalka ku sameeyaan waa yahay waxaa la xusayaa waxa weeyaan ganacsiga yaryar ayay u badan yahay maanta boqolkiiba 90 ganacsigeennu waa kuwa yaryar waxaa la yidhaahdaa small and medium enterprises SMEs innagu waa wada kulligood waa wada boqolkiiba 90 waa micro waa wada small service economy aanay ka shaqeeyaan inta badan service economy-guna wuxuu noqon karaa future-ka dalkan wuxuu noqon karaa kuwaas oo la xoojiyo oo baahidooda la daryeelo oo 5 ama 6 baahiyood ay leeyihiin hadday tahay maalgelin iyo hadday tahay infrastructure iyo hadday tahay skill labor intaba kuwaas oo laga xoojiyo oo iyagu inoo bedela kuwa aynu hore u soo sheegaynay waxa ay markaa noqonaysaa oo caawa aan leeyahay kuwa la xusaya ee hal abuurka la imanaya kuwa mustaqbalku ka imanaya weeyaan iyaguna maxay hadaba haystaan jaaniska haystaan waxa weeyaan dalkan buqcad ilaahayda ku abuuray buqcad qiimo leh weeyaan buqcad daris la weeyaan dad boqolaal kuna inay service economy-ga ugu adeegaan transit trade-ka mushtariga soo marka ah inay ugu adeegaan aqoonta oo la koriyo oo la maalgeliyo oo tacliinta sare xoog la geliyo oo skill la geliyo inuu iibinno aqoon oo ku hirgallo halkana ku apply garayno dabaddana ka iibinno inaynu haddii bayd maayo qoladaas wax allaala waxay baahi leedahay aynu haddii balmaysaa ku hirgelino waxaan markaa doonayaa inaan ku soo dhammeeyo waxay inagu soo kordhay oo iyadana dhaqaalaheenna iyo duruufteenna dheef iyo haddii bayd maayo dhibba leh dadka xoolaha dhaqi jiray kulligood iminka magaalada imanayaan magaaladuba koraysa magaalooyinkeennu waxaa la yidhaahdaa waa the fastest growing cities in the world oo hargeysa ka mid tahay maanta hadday kuwaa yihiin iyadana waxa loo baahan yahay magaaladii iyo shaqogelintiiba iyaduna magaaladu inay magaalo noqoto oo aan lagu hadlaynin oo keliya local government iyo wixii la mid ah waxaan ku soo gebagabaynayaa oo waxaan u dhaafayaa dadka kale ee si hoos u gelaya guud ahaan u sheegayaa waar dhaqaalaheennu meel warwar le buu marayaa waxaa lagaga bixi karaa iyada oo aynu isku dhibno oo hal abuurku noqdo maxaan anugu ku kordhiyaa wixii horaan awowgay ka dhaxlay maxaan ku kordhiyaa dhallinyarada waxaan leeyahay intaasu ha noqoto mootaha idiin noqoto maxaan anugu soo saaraa wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu وعليكم السلام دكتور محمد عثمان فضلات بو مهدسن yahay waxa caawa waxaynu joognaa habeenkii ay dadka reer Soomaaliland ee mudanaynu aqoonsan lahayn
kuna dhiirigelinayn doorkooda marka qof kastoo halkan aan uga yeedhayo si kooban waxaan codsanayaa inuu hadalladiisa soo koobo sidoo kale qof kastoona halkan uga yeedhno waxaan si kooban u dul carari doonaa waayo aragnimadiisa ama aqoontiisa marka waa wax inagu cusubtaan oo u dul qaadanaysaan waana wax wanaagsan oo aynu ku dhiirigelinayno intaa kadib waan u yeedhi doonaa markay soo kacaan leeyahay laakiin haddaan si kooban u sheego doctor maxamed cismaan fadal waxaa ku xigi doonaa yusur abraar oo ah muwaadinad reer somalilan yusur waxay aqoonta maamulka xisaabaadka iyo maaliyadda ka baratay waddanka maraykanka waxay jaamacadda oklahoma university ka qaadatay BA ama Bachelor of Finance markii dambena waxay qaadatay shahaadada sare ee MBA-da yusur waxay xilal sare ka soo qabatay City Group 2013kiina waxaa loo magacaabay agaasimaha bankiga dhexe ee Soomaaliya waxaa halkan erey muhiima oo ku saabsan arrintan aynu halkan u joogno caawa ee ganacsigeena iyo hal-abuurka iyo dadka reer Somaliland ee hal-abuurka iyo dadaalka la soo kordhay ay halkan ka odhan doontaa marka ha yaro fadhido waan u yeeri doonaa. So the next guest speaker is also one of my role models, my female role models in the country. Yusur Abrar is one of the highly experienced and accomplished financial executives from the United States. She's experienced in banking, insurance, financial inclusion, telecommunications. She holds a bachelor's degree and an MBA in finance from Oklahoma University. Furthermore, she held a number of senior level positions, including Vice President of Citigroup and Vice President, Chief Credit Officer for Growth Economics at AIG in New York. Next to that, she's done a lot of things, as you can tell. Next to that, she's also been appointed as the governor of the Central Bank of Somalia. Unfortunately, she later resigned citing corruption. Ms. Abrar currently, right now, in 2018, founded Horn of Africa Insurance, which is based here in Hargeisa and headquartered here as well. Please welcome to the stage, Ms. Yusur Abrar. Thank you very much for that introduction. Thank you very much, all of you. waxaa la yidhaahdaa the language of business waxa weeyaan English. Marka I will make my remarks in English, especially since ay dadka dhalinyaro meesha ka buuxdo, some of them may not even speak English, Somali. So my name is Yusur Abrar. I'm the co-founder of Horn of Africa Insurance. Horn of Africa was launched in Hargeisa this year. It's an honor and privilege to be with you this evening and to celebrate the 2008 Somali Land Award. This waxay tusaysaa ka hadli doono arrimaha ku saabsan small business development, and that's what we're here to celebrate tonight as well. I want to thank Inspire Group for hosting such a wonderful event. While we have our challenges, there is so much to celebrate in our community, and you will find Somalilanders are excelling in almost every field and in all parts of the globe. There is no doubt in my mind that the and will continue to be the engine that economic development in this country. In Africa, over 95% of businesses are SMEs, what they call SMEs, which are small and medium enterprises. In Somaliland, I would think that this is probably closer to 98%, which means that small businesses combined in Somaliland employ more people than the few large companies that we have. So what does this mean? It means that the government has to pay special attention to small businesses, to encourage them to succeed and to grow
so that they can employ more people. Economic development should center around small and medium enterprises because more small businesses means more jobs. That does not mean that big companies should be ignored, but we know we want the small businesses to grow and to become big companies later on. Okay. Well, everyone cannot immediately a small company because we have before we run. Anyone can. It does not require a lot of money to start a small business. Okay. If the product or services is needed in this country, you can start a small business and you can grow very quickly. I always think of the motto, start small, think big. Think local, aim global. Start local, aim global. Okay? Okay. But it's not just about bringing new ideas. I always hear markaan meelaha socdo dadka ka hadlaya, oh my God, Somaliland has this problem, it has that problem, I can't get this, I can't get that. You know, back home I used to get this, I can't get it in Somaliland. To me, I think that's an opportunity. If you flip that problem on its head, you can see the opportunity. So why don't you do something about it and make it an opportunity for you to write your own business plan and to do something that, you know, that can solve that problem. waxaan kaleen maqlaa had iyo jeer that products that are brought to Somaliland are cheap and so on. So how about bringing something new, products that are higher quality that other people would buy? Because not everybody wears the same shirt, not everybody wears the same color. But it's not about just bringing new ideas. It is also about execution and get customer service. About quality, about execution, about customer service. Most of the time, when people bring products to Somaliland, they bring the cheapest products they can find so they can make more money. But many of us are willing to pay more for higher quality products. And that means an opportunity for somebody else to do something about it. A happy customer, if you give them good services, is a return customer. When there is a problem or a challenge, there is always a solution that's always a solution for the private sector to do something about it. We see that innovation in many of the companies that are nominated for awards this evening. It is that level of foresight to bring new ideas to this country that will move us forward towards a place of economic development and economic strength. It is amazing to me to see the number of companies or new businesses that are opening up each year. The diaspora, many of you here today, tonight, can play a role in this development. And many of you are already playing a role. More of you hopefully will play a role. And as the speaker before me, Dr. Mohammed mentioned, bring your investments here because there is an opportunity for you to make money. Well, there are no statistics available about Somaliland's GDP or gross domestic production. Anyone who comes to Somaliland can see that it is a vibrant and growing economy. If it continues at this pace, you will not recognize Somaliland 15 years from now. I encourage all the young people to take advantage of this opportunity. You are in a unique situation, a growing economy, and a bright future that's going to get a boost from the Berbera port expansion and free zone, as well as the Berbera corridor. We are, Somaliland, in a very strategic position. If we combine the Berbera corridor and the Berbera port with a
and the free zone in Berbera with a free zone in the airport in Berbera or in Hargeisa, yeah, we can basically supply goods and services, goods not only to Ethiopia, but to all the countries that are locked in Africa. This is a major opportunity for you. Think of Somaliland. Think of Somaliland, and this is very important. Think of Somaliland as the Singapore or Dubai of Africa. Okay? You can laugh at the audacity of this vision. Okay? Or you can see the vision and share it with me. When I look at what the future holds for this country, I don't have no doubt in my mind that with the right vision, that we can be better than Dubai, that we can be better than Singapore, and we can be better than any countries in the GCC. If you share this vision, then the only question that should be in your mind is, how do we get there? How do we get there? If you wake up in the morning and you get your car out of your garage and you drive out of your garage and you don't know where you're going, yeah? You just basically drive around in random. But if you get out of your car and you know where you're going, then you get there, even if you make detours, you will get to where you're going. So what I'm challenging our government today, is about the vision that they have for Somaliland and the vision that they have for the opportunity that is presented by the port, Dubai DP World Port, by the Berbera Corridor. What I see personally is not only industrialization in the free zone, but I see industrialization and industries all along the Berbera Corridor all the way to Ethiopia. And there's no reason it cannot be done. The only thing that is a constraint to us today is cheap energy, okay? But with public and private and working with the international community that are there to help us, we can put the energy in place to make sure that our industries develop. Because without cheap industry, without cheap energy, we cannot develop the industry. And like what the speaker before me talked about, yeah, was the fact that the only thing we export, yeah, is the livestock. That is generations ago in Noqotabahed. By now, we should have been moving forward much faster than that. But there is always a time to do something. And I think the time is now. If we don't take advantage of that port, if we don't take advantage of the free zone, if we don't industrialize this country and create jobs for our youth, it is our fault and nobody else's fault. I'm almost finished. It's a bit longer than I thought. So, having said that, the government task, which I'm sure they're working on, is to have a clear economic vision, development vision for the Berbera port. Instead of viewing or looking at this port as a transit hub to Ethiopia, yeah, we should be looking at the Berbera corridor as a way to develop the economy, import substitution, as well as export-oriented industries. Yeah. What is required from the local and diaspora youth, and this time I'm talking to the youth, is to buy into this vision, to seize the opportunity. Don't take no for an answer. Pool your resources. Prepare yourselves now. The future belongs to you. Seize it, and I bet you can succeed, and may God be with you. aad iyo aad bay umahadsan tahay Yusuf Abraar. Intaa kadib si live ayaa barnaamijkeena loola socdaa. Kamaraduhu markaa miis walba way qabanayaan marka laga yimaado stage-ka. Dadka ka soo qaybgalayaasha si kooban waxaan uga codsanaynaa inay dhaqaaqa yareeyaan oo wixii muhiim ah ay u kacaan. Qofka labaad ee hadli doona waxa weeye aanu yeeri doona mar dhow waa Jamaal Cali Xuseen
jamaal waxa uu noqday maareeyaha City Bank ee dalka Tanzania ilaa sanadkii 2010kii waxa uu 20 sano leeyahay waayo aragnimo dhinaca xisaabaadka la taliya dhinaca maamulka bangiyada waana maamulo sare oo dhinaca bangiyada jamaal waxa uu shahaadada sare ee Master of Business Administration ama MBA da loo yaqaan ka qaatay jaamacadda Harvard ee dalka Mareykanka ereygiisa ayuu isna halkan ka oran doonaa The next person that we will invite on stage is Jamal Ali Hussein, who has been Chief Executive Officer at Citibank Tanzania Limited since July 1st, 2010. Mr. Hussein has 20 years' experience as an accountant, a consultant, and a senior banker to the local financial institutions. He joined Citigroup in New York in 1997 and served in different capacities. Furthermore, he holds a degree in MBA from Harvard University, the United States. So please welcome Mr. Jamal Ali Hussein. صعب كاين كسو دوينا جمال بابور سكسكة أو نمبر كيسي هاي لبيه سجاشن كون 9202 قف كوتي ميل قلدم بودجي حكا قال بسم الله الرحمن الرحيم إلهي باب مهدله distinguished guests oo horeeyo madaxweyne ku-xigeenka Somaliland iyo madaxda kale halka joogta ladies and gentlemen habeen wanaagsan waxaan u maleynayaa hadalkii intiisii badnayd labadii qof ee ugu horeeyay guest speakers ka ahaa si wanaagsan uga hadlay oo qoto dheer anu hadalka waan soo koobayaa laba kalmadood baan odhanayaa oo mid yahay muhiimadda ay leedahay caawa xafladan aynu joogno iyo awardska la bixinaya wuxuu dalka u yahay iyo dadka u yahay qodobka labaadna waxa weeyaan xagga dhaqaalaha oo laga hadlay oo aan doonayay in yar aan taabto sheeko yar baan doonayaan ku darsado beriba waxaa jiray in dalka Australia ayaa company kabaha iibiya oo dalka Mareykanka ah ayaa waxay u direen nin salesman waxay ku yiraahdeen bal halka ka soo waran dadkaasi sidaan kaba uga iibino marka ninkaasi wuxuu u tagay dadka la yiraahdo aborigines ama dadkan madmadowga aan wali ilmada aanay gaarin ee dalka Australia ku nool marka nin kalena waa la diray laba nin baa la diray marka ninkii koowaad uu soo jawaabay wuxuu yiri dadkani kabahaba ma yaqaanaan oo ma gashadaan marka kaba ka iibin kari mayno ninkii labaad baa isna taar soo diray wuxuu yiri dadkani kabaha ma gashadaan marka Chinese weyn baa ku jiro waynu baraynaa sida kabaha loo gashado hadaba laba qof oo isku wax soo arkay Somaliland laftirkeedu waa sidaas oo kale weeyaan dadka qaar baa oranaya war meeshan waxba ma yaalaan oo waxay filayaan inay wax walba ay diyaar iska noqdaan dadka qaarna waxay eegayaan Chinese-ka yaala dalkan iyo fursadda taala iyo mustaqbalka ay leedahay dalkeenu waa dal dihin wax wali lama bilaabin waa Chinese badan baa yaala xagga industries-ka waynu sheegnaa wax walba dibadda laga keensadaa dalku wuxuu dal ku noqdaa markuu xagga industrialka ama xagga warshadaha oo kabihii la sameeyo wax walba la sameeyo dharkii la sameeyo dalka gudihiisa lagu sameeyo marka dambe ay dhoofiyaan inta ay marka shaqo abuur ba halka ka bilaabmaya waxaan shaqada la yiraahdo dawladuhu shaqooyinka ma bilaabaan shaqada waxa abuura oo sameeya baa mushtari ama private sector dawladuna waxay u sameeysaa oo gogol xaadaayo meeshii ayay u salaxdaa hadday noqonayso xagga sharciyada xagga noqonayso xagga ammaanka xagga noqonayso xagga maalgelinta iyo waxyaalahaas ay ka caawinaysaa oo ay iyadu dawladdu shaqalkeedu yahay iyadoo canshuurtii ururinaysa canshuurtiina wadooyinka iyo infrastructure iyo nolosha hagaajinaysa dadka laakiin dadka ayaa innovationka laga doonaya marka dadkeenu inta badan waxaanay aad u aqoonin waxa weeyaan waxa la yiraahdo partnership ama inay wax isku darsadaan imika haddii 1,000 qof ay jiraan oo 1,000 qof walba $4,000 uu bixiyo waa la heli karayaa maanta Hargeysa
kun qof oo min $4,000 haysta waa $4 milyan $4 milyan company wanaagsan oo mid size ayaa lagu bilaabi karaya oo managementkiisa separate tahay board of directors leh structurekiisa iyo wixiisaba ay hagaagsan yihiin oo lagu shaqayn karayo marka waxaan leeyahay oo private sector-ka aynu culayska saarno kelmadda kale ee aan ku darsanayaana waxa weeyaan muhiimadda ay leedahay awoodiskan aan caawa joogno ay dalka iyo dadka u leedahay waxaa lama huraan ah in aynu dadkeenna dhiirigelino caawa halkani waa dhiirigelin weeye waxay u tahay tusaale dadkii dadaalay ee ka soo dhex baxay ee muujiyey innovation ama wax cusub keenay ama baaci mushtari sameeyey dadkaas ayaa la dhiirigelinayaa oo la aqoonsanaya marka qofkaa la aqoonsado hadhow faras buu ka dheeranayaa oo cararaya dadka kalena way ku dayanayaan marka waa cusub oo Soomaaliland u bariyay baan u arkaa anigu in aynu yeelano wax la yiraahdo Somaliland Awards oo la bixiyo insha Allah waxaan ka rajaynayaa inay noqoto wax sanad walba la sameeyo marka dambena weynaada oo extensive noqdo oo awardska la bixinayaana ka sii weynaadaan dadkuna marka qof walba uu hiigsado inuu halkaa uu meel ka gaaro dadkeena inuu dhiirigelino dhalinyaradeenna iyo waxbarashadeena ayaa loo baahan yahay marka waxa inagu u baahannahay Soomaaliland wax badan baa yaal hadday noqoto natural resources hadday noqoto macdan petrol wax walba way ku jiraan hadday noqonayso dekedda berbera oo laga shaqaysiin karayo oo la isticmaali karayo meesha aynu ku naalo iyo hadday noqonayso service economy oo noqonaya infrastructure-ka aynu samaynayno iyo warshadaha aynu samaynayno dalka loo samaynayo marka waxaan leeyahay groupkii soo qabanqaabiyeyna waxaan leeyahay hambaliyo ayaan leeyahay juuriga na waxaan ka rajaynayaa iyaguna in ay si qoto dheer iyaguna u darseen dadka ku jira waan arkaa waa dad muxtarima bulshada muxtarima ku ah idinkana waa idin hambaliyeynaya dad ka soo qayb galana waxaan leeyahay habeen wanaagsan wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جمال علي حسين aad buu maasay malaaqad badii bay dhaadheeraa baynu ku yara daalay marka in yar baynu ku nasanaynaa hees ay noo qaadi doonto fanaanada Hodan Cabdiraxmaan oo aan ku soo dhaweynay stage-ka السلام يا عاود ورد
سامي كلام صنوا علي تشا سرقوا بك وانا قصدو والله كما سيست سامي كلام صنوا علي تشا سرقوا بك وانا قصدو وسيادنا بدان سوغانو برواقك صور صومالي الله وسيادنا بدان سوغانو برواقك صور صومالي أوكي سلالي قدوي اسمع إلا صباحيو صباحيو إلا صباحيو سقدحي داي أوكي سلاليو قدوي اسمع إلا صباحيو صباحيو إلا صباحيو سقدحي داي سوريا قبلي موضوع لسفيو نعم صح صدقي والله هاي روحي صليك تسراريا سرعك قد تسري ذقبي الله ساتري قبلي لمصي عفو يا سحري قلسي قلي الله ساتري قبلي لمصي عفو يا سحري قلسي قلي عدى الصولي يا سنك تقايو يا صارت وقدير صبحو مامو هي وسيما يسابري بربرا ويهاركي سوسير دوا سغيه يا سوقي يا سنتي بور وحيق صلاة يا سيدو يا سوقي يا سنتي بور وحيق صلاة يا سيدو حتى صولي يا سنك تغيو نعو صح صدبي والله مروي وسيما يسابني بربرا سرعك قد تساري رقبي يا صوغي يا سنتي بورمي وبحيق صلاة يا سيدو الله ساتري قبلي لمصيم عفو سحري ودوسي قلي سريا قبلي مبوغة لسفيو نعو صح صدبي والله روحي صليك تسراريا حركي ساسيرا دوا سغيه الله ساتري قبلي لمصيمي عفو يا سحري ودوسي قلي يا سوقي يا سنتي بورمي وبحيك صلاة يا سيدو horta caawa waxayna kulmiyey waa nabadda haddaanay nabadi jirin maynu wada joognayna waxaan leenahay somalilan ilaahay saraha ka yeelo nabaddana ilaahay haynoo xoojiyo وهجاج أدم هاتسنت هاي هذا عبد الرحمن mar labaad waxaynu codsanaynaa in socodka la yareeyo inta kadib waxa si kooban aniga ku hadlaya Inspire Group afkooda aad loogu mahad celinaya kambaniyada iyo shirkadaha iyo muwaadiniinta barnaamijkan inuu suuro gelisay iyo taageerayaasha barnaamijkan taageeray waxa kamida oo si kooban u xusaya Last Group Dahabshiil Group soo gasho ama Som Cable Sagal Chad shirkadda daabacada Sagal Chad
Fly Dubai shirkadda Fly Dubai oo Cumar baynala jooga aad baa u mahadsan yihiin waxaa kaloo aan u mahad celinaynaa DNA oo marketingka ah Hargeysa Bits qolada la yidhaa waxaa iyagana mahad celin gaara leh Rock Research Smart Jobs iyo Sahal Touch intaa kadib muwaadin reer Somaliland oo halabuurkiisu guuleystay oo qiimo badan ku soo kordhiyay dhinaca businesska ayaa caawa isaguna dalkeena la jooga waa maareeyaha guud ee shirkadaha World Remit Axmed Ismaaciil Sacabka inuu tuno Axmed waad mahadsan tahay dadaalkaagana waa mid la xusi karo ayaan leenahay intaa kadib waxa aynu soo dhaweynaynaa oo halkan gabay nooga qaadi doonta halkan gabay inooga soo jeedin doonta cafwan Cashaluul Maxamed oo ah gabayaar reer Somaliland. Please welcome to the stage Cashaluul Maxamed, who will be doing a piece of poetry for all of us. Sacabka aynu ku soo dhaweynaa Casha. بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنا ذو هذا سلامي دمان مرتي شرفته سويت مي حفلة ما يقايا له حنسجارة وقوم هذا نقيا قبل قابياشة حفلة سوق قبل قابيي يا سيدة شرفت لي يقصوا عسمي أد بين يجنا وقوم هذا نقيا ولا عشينا يا يأكل هذي العشينا يو من دي يوم القعد ويسسارين هسه شبل قبل بان نوترين إن شاء الله wuxuu ka hadlayaa uun dalkeena inaynu horarkiyo waraabaha inagu dhex jiray inagan meel kale inooga iman ka ilaashano bismillaah hada gabayga xiisaha murtida xulashadii heesta xariireynta maansada baryahan kuma xanjeerayne xidigiisa maan furin wax badan xarakadiisii xigmadda iyo suugaantu waa xeel rabaaniyahe adigoo xaggeedaba dhigay ku xaradhaan tahay aan xurmeeyo caawo kalaan أنا حرمية سادة بريئهن وأنا جاي حراي أنا قان حبال هوسي حماها فارينين وأنا حنشر برورين ونحبين تجوينين سنحر كأن شمنين وندرس حفالينين رنتو ويحنون بدنته حنف أبورينين حشداها دي أن ركرجو حرفية تاريخ له حجين هاو ملايين وروا الله يسحسوا شاي حنتوبي سجي دقة حيا حين كل جاي أبي للي يردي حدو كعدين لوجو حري شلكه xuduudaha kuwii jiray ee xabashka soo jeestay xarumaha dhanka Yurub kuwii xariga miiqaayay xisaab murugtay kala xaabiye xuudka u bareeray shacab xoolihii ku dhigoon abid ka xiiqaynin xabaalaha hadaan geesi gelin xulad ma maaleen lama heleen xurnimada jirtay calankan xayndaabe lama heleen xurnimada jirtay calankan xayndaabe lama heleen xadiiska iyo diin xaakim soo rogaye lama heleen irkoo xayd lahoo shubaya xayskiiye lama heleen midhii xamakowgiiyo xabag barsheediiye lama heleen xareer jiifta iyo xamashlihii dooge xasilooni nabad lama heleen xeer dastuur dhigay geedkaba haddaan xididu bixin ciidda xananaya oo aan biyuhu soo xulayn ubax ma xaydeene innaguna haddaynan xafidan xeesha danaheenna oynan xaqiirkiyo ka hirin xulufa shaydaanka حواورس أيوم بين النقون تاني حابالي حنتظر يصبق لي فيه حول الكواد كاضي من قبيل حنشوقا يوح مها بيرايا حرام بتصدي دالين وان حقترانين حردانا يا بورها متكي دوحة حقانايا حشم الله وانقرنا هين خير كقرن كين هدينا حقي حق كهيرين حارف لي توقع حلك صلاويال بين النقون دي بحنباروبي حاسدان إلهي كبقين وحقد أبوره حفلت محل ولا يستوى حالة كلمة جن حردان عيا بورها متكي دوح حجنا عيا
xangulada mid siibayo oo aan xumbada reebin xagaafaya badahoo dar kale xuurta ugu geeya haddaan xirada loo oodin oon xiinka laga moosin xansas urursaduun baynu noqon xaajo kala beelay waxba gabaygu yuu ila xadfina waan xadadayaaye maahmaa xog dheeroo qalbiga xadanta kaa gaadho xeerbeegti weedheedii baa la isxasuushaaye haddii ay abaar xumi dhacdo xaaluf la istaago oo geela xoor laga dhamiyo xuuxba laga waayo adhiguna xayeesh wada noqdoo maalku xamasoobo xorfadda iyo dhoobadu gudhoo xaabka la idleeyo xorfadda iyo dhoobadu gudhoo xaabka la idleeyo calankaa xafaaroobay yuu inaga xuubsiiban yuu xayoobsan xanan boodhle iyo xidh iyo booraamo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu Can we get another round of applause, please, for Ashlul Mohammed? Okay, a little louder than that. I know everyone is eating, but I'm sure we can all clap together when everyone does entertainment tonight. For the next person... mar haddii aynu cashaynayno markaa qof kale oo khudbad jeediyo kusoo dhaweyn mayno waxaynu ku yaranasanaynaa ciyaar dhaqameed ay halkan ay ka ciyaari doonaan kooxda halkar soo dhawaada Ladies and gentlemen, please have a round of applause for Folker Dance Halkar. Sadio
ayaa ku leenahay hawayo halyeygii ku dhalayo marwa hooyadaabaad haybadoodi leedahay hawayo waxadiiba u leedahay inta haybadiyo sharaf hawe lagu tilmaansado hawayo waxa lagugu soo habay garashada habboon iyo diinteenna hodanka hawayo haybado hadayay hooyigaad ku dhalataa hoodiyo karaamale hawayo hoboladii dalkeenna kuu wada hagamayo waa lagu hawan yahay hawayo heesaha macaaniyo firwadiyo ciyaaruhu habeenkaagi weeyaan hawayo adiga iyo hanadkaba ducanii bayne helaa oo hawaayina hawayo shalila shalila ya waliyullah sheekh abu sufaynow kalay honay hirmagolay kalay honay dayrilacday kalay honay hogol roobey kalay honay haradorlay kalay honay hirmagolay kalay honay dayrilacday kalay honay hamigaygay kalay honay hankuraciyey kalay honay hiljacayley kalay honay loo hilowyey kalay honay hamigaygay kalay honay hankuraciyey kalay honay hiljacayley kalay honay loo hilowyey kii hablaha u sarraysay kalay hormudkii haweenkay 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 kalay honay hayb wanaagey kalay honay hidaracey kalay honay loo halowyey kalay honay habondeeqay kalay honay hayb wanaagey kalay honay hidaracey kalay honay loo halowyey kalay honay
haddon deeqay kalay hunay middanay shay kalay hunay higsigayga kalay hunay haybadleey kalay hunay harad reebey kalay hunay middanay shay kalay hunay higsigayga kalay hunay haybadleey kalay hunay harad reebey hablaha u sarraysay kalay hormudkii haweenkay tii hablaha u sarraysay kalay hormudkii haweenkay tii hablaha u sarraysay kalay hormudkii haweenkay hablaha u sarraysay kalay hormudkii haweenkay waa mahadsantihiin aad iyo aad baa mahadsantihiin kooxda halkan aad bay u mahadsan yihiin markaa barnaamijkeennii baynu ku guda noqonaynaa waxaa intaanan u yeedhin qofka ku xiga hadalka inspire group waxay u mahadnaqaysaa kambaniga soo oo adeega xagga internetka oo inoo suuro geliya caawa barnaamijkan indaafaha dunida si live ah loogala socdo youtube-ka iyo channelada facebooka qaar ka mida aad bay mahadsan yihiin kambaniga soo waxa aan u yeedhayaa halkan ereygiisa si uga idhaahdo saxafiga iyo qoraaga maxamed baashe xaaji xasan maxamed baashe sidoo kale waxa weeye waa juuriga ama guddida go-aanka ka gaadhaysay arrintan iyo cidda la abaal marinayo iyo cidda ku munaasibka ah maxamed waxa uu halkan ka sheegi doonaa marka uu hadlo kadib oo uu ka shaacin doonaa qofka reer somalilan ee noloshiisa u hibeeyey dadkiisa ee adeeg uu qabtay ama halabuur uu la yimid ay dadkan qaranka somalilan u aayeen marka maxamed baashe xaaji xasan baan u yeedhi doonaa First of all, before we continue, we would like to give a special thanks to So Gasho, who provided tonight's event. So Gasho Company. Sorry. It's apparently only so. My apologies. They have provided us tonight with free internet. Everyone is right now watching live on Facebook. Furthermore, we would like to start with the award presenting. The first award right now will be the Lifetime Achievement Award. Please welcome to the stage, Chair of the Jury as well, Mohammed Bashi. Mohammed Bashi, so do. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخيارتا شرفتا يملقها يا تمر ويل كارهان مدحدا قرنكا يو أو هرمود كي هي مدحوين كحجينكا جمهورية سومالي لان عبد الرحمن عبد الله إسماعيل سيلعي يا مدحدا كلا لصعوتا سياسيين تا رج يا تمر بعد دوينها شرفت لها الفنسويني تدبات كيو دمبيي وحان كوهولانين runtii hawl qara iyo miisaan leh oo ku saabsan sidii aanu u kala xuli lahayn 21 ganacsi
ururo shakhsiyaad kala duwan oo markaasi lagu abaal marinayo awardkan maanta horteena yaala ee Inspire Group ay soo qaban qaabiyeen anagu waxaanu ahayn 6 qof oo halkan hortiina iman doona oo rag iyo haweenba isugu dhafan sidii horeba carabka loogu dhuftay takhasusaad kala duwan iyo aqoon kala duwan leh oo badidoodu ay halkaa isku barteen hawshu runtii dad wada mudan ganacsiyo wada tayo leh qiimo leh sida lagu kala saaree lagu kala suureeyo ee markaasi awood lagu kala siiyaa amuur sahlan ma aha si haddaba aanay u dhicin inaanu cadaalad darro ku dhacno waxa aanu samaysanay criteria aanu ku kala saarayno waxa aanu cuskanay halku dhiga ama murtida Soomaaliyeed ee hoosta ka xariiqdeed tiraahda Allahayow hanagaga tagin aqoon la'aan hanagu cadaabin mar haday meesha taalo gari laba nin kama wada qosliso oo kulliba dadka la tartansiinaya ee la kala abaal marinaya aanay wada guuleysanayn ee in kamidii guuleysanayso annaga xil weyn baa naga fuuray dusha annaga oo wax kasta ka madax bannaan caadifad ka madax bannaan cudurrada dilaaga ah ee bulshadeena naafeeyay ka madax bannaan ee qabyaaladu ka mid tahay gobol jaclaysigu ka mid yahay qof jaclaysigu ka mid yahay waxyaalahaasi oo dhan annagoo ka madax bannaan oo dibadda dhignay ayaa waxa aanu isku dhaarsanay oo aanu gudagalay sidii alla nagu og yahay wixii aanu aragno iyo wixii aanu maqallo ee aanu la kulanno intii aanu hawsha ku shiray inaanu wax ku kala saaro 22 qof ee kala metelayay tartamayaasha la kala abaal marinayo waxaanu ka qaadnay interview ama waraysi isku mid ah su'aalo isku mid ah waqti isku mid ah ayaanu ka qaadnay toddobaadkii u dambeeyay laga soo bilaabo 2 bisha August ilaa iyo 9keedii oo maalintii shalayta ahayd ayaanu hawsha ku xadfanay haddaba si aanu u kala saaro dadkaasi annagoo u wada aragnay inay qiimahooda leeyihiin waxaanu qaadanay ururkaasi ama ganacsigaasi ama qofkaasi faa'iido intee la'eg buu bulshada ku soo kordhiyey dad intee la'eg baa ka faa'iidi kara ama ka faa'iideysta adeegyadiisa ama hal abuurkiisa ama waxa uu soo kordhiyey 2 maxaa u gaara oo businesskaasi ama qofkaasi ama hal abuurkaasi uu kaga duwan yahay oo gaar ka yeelaya businessyada kale ganacsiyada kale shakhsiyaadka kale ee hal abuur kale iyo markaasi ururada kale waxaanu kale oo iyana qodob muhiim ah aanu ka dhiganay oo kriteeriyada ka mid ahayd aanu wax ku kala qiimaynayno kaalin intee la'eg ama door intee la'eg ayaa ururkaasi ama ganacsigaasi ama hal abuurkaasi uu ka qaataa arrimaha bulshada waxaan loo yaqaano social responsibility oo deegaanku soo gelayo beeyadu soo gelayso qaabka uu adeegiisa u gudbiya soo gelayso waxyaabaha noocaasiya waxaanu kale oo iyana aanu ka dhignay qodob muhiim ah shaqo abuur nooceeya oo intee la'eg ayuu sameeyey ganacsigaasi ururkaasi ama hal abuurka shakhsigaasi dhiirigelin intee la'eg buu bulshada ku soo kordhiyey si hawlaha noocaasi loo sii ambaqaado waxyaabahaasanu cuskanay iyadoo ugu muhiimsan waxyaalaha ka mid dhalintooda aanu ku keenayna waxaa ka mid ah interviewga aan carabka ku soo dhuftay ama waraysigaasi aanu la yeelanay qof kasti xilli
go'an oo isku mid ah iyo su'aalo isku mid ah intaa kadib waxaanu uga gudubnay markii aanu qiimayntaa helay waraysigaa wixii nooga soo baxay oo ah wixii aanu maqalay iyo wixii aanu aragnay inaanu markaa soo booqanno goobihii ay ka hawlgelayeen dadkaasi iyagoona ogeyn oon war noo hayn oo aanan u sii sheegin si sudfo ah oo kadiisa inaanu u tagno si markaa aanu isu barbar dhigno wixii aanu ka aragnay waraysigii ama aanu ka maqalay iyo wixii aanu goobta shaqada ku soo aragno iyana waxay noo ahayd bartilmaameed kale oo muhiim ah intaas iyo markaa annaga oo u turanayna magacyadayada sharafta aanu bulshada ka filan inaanu ku leenahay duuga iyo taariikhda dambe waayo waxani waa wax dadka hortiisa iman kara oo nalala qiimayn karo dad naga aqoon badan baa jira dad nooga fara dhulban baa iman kara qiimayntaanu samaynay iyo tu ka qoto dheer sii samayn kara annagoo waxaasoo dhan maanka ku hayna ayaanu markaa go'aamo nagu adadkaa dhib badan aanu kala kulannay dhexdayada aanu aaraa kala duwan iyo afkaar kala duwan iyo markaasi aragtiyo kala duwan aanu ka lahayn haddana food iyo cod haldheeriya aanu ku meel marinay inaanu soo saaro 7 ganacsi isugu jira ganacsiyo ururo iyo markaasi shakhsiyaad halabuur leeyihiin waxa kale oo weheliya oo awood naloo siiyey Inspire Group inaanu 2 qof soo dooranno bulshada dhexdeeda qof Somaliland hore iyo imikaba wax muuqda gashaday oo u huray dhinaca horumarka iyo qof dhinaca nabadda isaguna markaasi biiro fiican oo wax ku oola ku soo kordhiyey oo saamayn yeelatay intaas ayaa anaga hawshayadu ay ku ekayd kama mid nihiin Inspire Group si madax bannaan bay noo soo xusheen annaguna si madax bannaan baanu u shaqaynay iminkana waxaan hortiina keeni doonaayey oo aan u yeedhi doonaayey xubnihii kale ee aan afkooda ku hadlayo oo aan iskiin bari doonaa waa guddidii qiimaynta abaalmarinta sanadka 2018 ee Somaliland soo dhawaada waxa aanu ka koobnayn 6 qof 2 hablood iyo 4 rag ah waxaan ka bilaabayaa Freedayda midig oo aan iskiin barayaa Naciima Cabdiraxmaan Ismaaciil waxay ka mid tahay dhalinyarada hormuudka ka ah dhinaca hal abuurka ganacsiga waxay suurtagelisay inay waddanka ka hirgeliso ganacsi ku saabsan dhisaynka dharka gaar ahaan dhalinyarada kaasi oo baahida inta badan daboolay dhalinyarada isla mar ahaantaana wax cusub ku soo kordhiyey qaabka dhar xirashada ee dadkeena Maxamed Xaaji Maxamuud